waxaa jirta laakiin qiso kaloo cajiib baa jirta oo magacaan naanista ah barmas ee ku saabsan waqtiyada ka mida baa gabadh waalida baa xafiiska timiday gabadhaasi runtii gabadhee weyna way ahayd laakiin magacan barmas way maqashay inanteedaana ku tiri macalinka barmas la yidhaahda hebel hebel laakiin barmas la yidhaah ayaa sidaas oo macnihii arrinkaas uu iga jiraa xafiiska markay timiday gabadhii ee maamulkii ay weydiisay aniga la ii yeedhay dabeetana markii hawshii iyo muraadkii laygu yeedhay aan u dhammaystiray ayay markaan sii baxayay way tiri war walaal waxaan ku weydiiyey maxaa lagugu bixiyey magacan barmas saanad maxaad u fahantay markaasay tiri wallahi goorahaaba si hoose aan kuu eegayo anu magacan barmas waxaan ula kala baxay laba kelmadood af soomaaliya badh iyo mas marka waxay tiri waxaan sintoo ruuxani armaabo in ka midaba maska yahayba marka dadka waaweyn oo kale ama dadka ardada aan ahayn oo kale aad bay u adagtay inaan ka dhacdhiciyo barmas waxa uu yahay laakiin inta badan ardadu si fiican bay ay ula haystaan oo magacaas way garanayaan marka intaas ayaan kusoo koobi lahaa aad baad maasaasay ku timid way iyadoo waxbarashada la dhiganaya aad arkaysa ardayda iyo balcadii xidhan meelahaas ka fadhiya adiga ka macalin ahaan iyo khibradda adeegsanaya ardayga maxaa jeclaysiin karaa soo kartaa waxbarashada waa laxmadow horta su-aashaas runtii waa su-aal ubucdeeda iyo runtii miisaankeeda leh waana su-aal haddaanu isnidhaahno toos u faahfaahiya waqti badan qaadanaysa meelo badanna runtii nala geli karta anuu ka ridwaan ahaan markaa maka macalin ahaan markaa aan qiimaha aan saaro ama miisaanka aan saaro runtii way jirtaa waayadan dambe inaanay ardayda ama da-yartan dambe waxbarashada aanay si fiican niyadda aanay nagu sii dayn runtii jeclaanshiyaheeduna aanu ku sii weyneyn waxyaaba badan baa ayaa horta saameeyey oo runtii saameyn weyn ayaan ku yeeshay waxaa ka mid a waal waxyaabaha saameeyey arday waxbarashada inaanu jeclaanin ardaygu fikradda ugu horeysa waxbarashada ka haystaa waxay tahay horta inuu shaqaysto wax ku cuno ideolojiyada ugu horeysa ee markay ardaygu iskuul geynayna wax la barayo maskaxda ku sitaa waxa weeye waa inuu ku shaqayn doono wax ku cuni doono haddii ardaygu falsafada ama ideolojiyada noocaasa maskaxdooda ku hayana waqtigan dambe waxaa jira ama soo baxay waxyaabo badan oo social media ka mid yahay ardaygu lacag ka sameyn karo isagoo waxbarashada aan tegin dugsina aan maxaan tegin dadna markaa dhalinyartan dambe hadda waxay runtii ku dadaalaan quick money lacag degdeg inay helaan oo aan waxbarasho oo long term inuu school dhigto oo jaamacad ka baxo oo training qaato oo shaqaale uu noqdo oo halka uu ka sii wado ayuu markaa ayaaba diidan yahayba waxa uu leeyahay wax alla waxay faa'iido leedahay ma jirto marka waxyaabaha wala saameeyay waxa kamid ah runtii ardayga oo hadda meelo yar yar oo shortcut oo dhadhow wax dhaqaale yar ka sameyn kara walaal waxbarashadu sideedaba markaynu ka hadlayno waqtigan dambe waxa ayna aad u saameeyay waxbarashadu waxay gashay ganacsi bay gashay ganacsigiina saddex shay bay yiraahdaan dunida reer galbeedku ganacsiga waa laga ilaaliyaa ama inay business galaan waxbarashada kamid ah waxa kaloo kamid ah caafimaadka waxa kaloo kamid ah siyaasadda iyo ganacsiga inaanay wada falgelin wasaare ninka siyaasiga ah hadduu ganacsadana yahay ama ninka madaxweyne hadduu ganacsadana yahay de isaga xeerarka gacanta ku haya marka hadduu ganacsada yahay macnaheedu waxay noqonaysaa xayndaabku ka baxayo hadhow toolo ummadda inuu adeego waxa laga yaabaa inuu xeerar badan oo meheradiisa ama businesskiisa u janjeero inuu mar walba yidhaahdo ama ka daaya ama taay sameeya marka waxyaabahaas businesska waa laga ilaaliya ama ganacsiga marka runtii waxbarashadii waxaad moodaa runtii inay dhaqaale ahaan marka la eegana inay runtii ay noqotay ganacsi inay maxay u badatay waa run oo wax walba waxay u baahan yihiin dhaqaale macalinka waxa dhigaya institutionka cidda ka shaqaynaysa qofka xaadhaya haddana waxaad moodaa runtii waxbarashadeen imika inay xagga ganacsiga inay maxaa ay u sii badan tahay kaasina waa vectorka labaad ee runtii saameeyey in ardayda waxbarashada aanay sii jeclaan waxyaabaha kale saameeyey waxa ka mid waxbarashada waa ardaygeenu inaanu sii jeclaan waxa ka mid ah runtii manhajka fog
laga leeyahay ama ujeedada fog ee laga leeyahay ardaygan markuu wax barto kadib maxaa laga rabaa inuu noqdo oo runtii iyana aan caddayn oo ah un ardaygu inuu socdo inuu ku jiro cycle-ka geer laba jir soo wada mar inuu ardaygu primary secondary jaamacad kadibna haddana uu saa u wareego inay noqotay marka waxyaaba badan baa walaal ayaa saameeyey inuu ardaygu waxbarashadii inuu ka cararo waxaa jeclaysiin kara ardayga waxbarashadana waa inta cagsigeedu in la diyaariyo manhaj tayo leh oo vision dheer leh oo aragti fog leh oo ardaygeena yani qorshe cad yani ka yeelanaya runtii nooc u ekaan doono mustaqbalka in aad loo tayeeyo waxa kale oo runtii ardayga jeclaysiin kara waxbarashada timekan sheegayo oo ah waxbarashada in businesska aad looga saaro macnihii in waxbarashadu dunida way ka jiraan the private sector way ka jiraan oo wax inaga inoo gaara maaha public iyo private adduunku way ka wada jiraan waxbarashada publicana in la tayeeyo oo runtii miisaan loo yeelo weeyaan ta saddexaad oo ah markaa in ardaygeenu markuu wax bartana inuu wixii uu bartay wax ku helo wixii uu bartay inuu wax ku helo markuu ugu yaryahay aqal inuu noqdo qof qiimo ku leh waxaanu soo bartay oo lagu tixgelin karo oo aan laga hormarin qof uu oday wado ayaa markaa muhiima marka waxyaaba badan baa wala ayaa ardayda jeclaysiin karaa intaas waa markaynu si guud aynu hadalno in detail markaynu gudaha aynu galno kalaaska gudihiisa macallinku maadada uu dhigayo iyo waxa uu gudbinayo ardayga isagaana jeclaysiin karaa isagaana necbaysiin karaa macallimiinta qaar markay casharka dhigayaan ardayga waxay uga dhigaan qalbiga si niyaday u dhigaan oo ardaygu dareemayo qofkan wax u dhigayaa inuu wax dhigista ku raaxaysanayo isaguna u daacad u yahay macallimiinta qaarna waxaa laga yaabaa inay 4 xaraf ee buugga ugu qoran intay dul maraan inaanay ujeedooyin kale iyo ahdaaf guud aanay ardayga uga gelin marka waxyaaba badan waxaa ka mid oo kale environmentka ardaygu waxuu ku baranayo waa qayb ka mid a ardaygu inuu jeclaado waxbarashada waxaa ka mid oo kale ardaygu inuu waxbarashada jeclaado inuu arkay dadkii ka horreeyey oo waxaan ku hana qaaday dee hadday 5 ay walaalayihiin ama 5 ay ilmaadeed yihiin gurigii fadhiyaan oo intan imika uu baranayo soo wada barta 5 saac xaafadda ay ka wada qaataan waxa weeyaan ardaygaasi niyad ahaan ayaanu sameynay marka waxyaaba badan ayaynu heli karnaa inaasaynu kusoo koobana kulli macallin haddaa kula kaftamo dee anu hore kumaan aqoon imaka hor fadhida unbaa dee araggaaga iyo dee physical appearance imaka ay muuqata laakiin waayadii hore de kulli macallin kastaba arday buu soo saara waqtiyadii wax la baran jiray jaamacadaha la isku imanayay kulli arday badan iskuulka dhigaysay ka socotay baan aragnay marka meelaha qaar ayaan xisaab dhigaynay ayaabaan anu maqlay dee adoo lagu hadlayo oo barmas waa marag meel oo xisaabtu ku jirta meelaha ugu badan xisaabtu soo noqotaa dee jaamacad iyo primary iyo secondary way isku soo noqotaa marka xeerkan ma dhiganaynan kaga shaqeynay marka arday kamid ah ardaydii aan soo bartay ayaa yiri macallin barmas laaba wax soo dhigi jiray markaan yaro wareystayna ardayda waayadaas way fog bahay ilaa 2020 meelaasay markaan wareystay waxay sheegeen inay tahay macallin aad loo ixtiraamo oo aad loo jecel yahay oo ardaydu ay aad ma garanaysaa uga dambeeyaan isaguna si daacad wax u dhiga bal qiyamka intaa leeg iyo in ardaydu qalbi ahaan ay ku jeclaadaan maxaa sabab kartaa axmed shaakirow horta kolley su-aalaha qaar way iga xishootiinaya waayo markaad saas oo kale iminka markaad su-aasha noocaas oo kale maxaad weydiiso waxay noqonaysaa in aanu markaas sharaxo su-aalahaas oo kale waxaa ku yaro fiicnaa kolley dhinaca kale in la weydiiyo ardayda qaar in lasoo weydiiyo oo macnihii de saas iminka aad xogta adiguba aad ku soo heshay laakiin walaal si guud baan u tilmaamaya axmed shaakirow hortu ilaahay fadligii bay ahaatay ilaahay baan runtii suurtageliyey in runtii arday fara badan maanta markaan joogo markaan ka hadlayo wax dhigidayda waxaan filayaa 2009 marka laga soo bilaabay ilaa imika 15 sano waqti ku dhow ama ahba 15 sano 4 sano ka mid ah waxaan dhigay waxbarashada non formalka la yiraahdo non formal markaan leeyahay waa waxbarashadan aan tooska ahayn iskuulka iyo jaamacadda iyo dariiska loo xidhay ee macnihii waxbarashada formalka aan ahayn
marka waxbarashada private-ka ayaan horta ku bilaabay wax dhigista ku bilaabay wali waqtiga anigoo aad u da'yar anigu qudaydo xilliga secondary level ayaan ahaa runtii wax dhigidda anigu markaan ardwaan ahaan iska hadlo runtii wax dhigidda ama inaan macallin noqdo waqtigii hore hobigayga ma ahayn intii ardayga aan ahaa aan wax soo dhiganayay dugsigayga hoose runtii may ahayn waxaan jecelahay inaan macallin noqdo waxyaabo kale niyadda ku hayay laakiin macallinimada markii aan la kulmay waxay igu kalifay inaan macallin noqdo waxay ahayd maadadan xisaabta la yiraahdo ayaana horta isku fiicnayn baasha nimanka aan dhigo dadku igu amaanayaan ilaa imaka hadda dhigto ma aanan fiicnayn waayadii hore dugsiga hoose aan ahaa way ku adkay dabeetana waxaan go'aan ku qaatay bahasha inaan godkayga shaba kaga daba galo waxaan aad u xasuustaa anoo 3 bareefado kala duwan dhigin jiray xisaaba 3 kaliya waa 3 bareefado waa 3 bareefado xisaaba 2007 ما فلي 2008 لا 2006 ملها وقتي حس على عينان 17 مي يقول لي شيء هل كان لكتنا الشيخ مدر بريف اللي شري مع الفرحان عمر الله بركيه نور الدين مع اللي عبد الناصر محمد والسماء كنتي معلمين صدحه ayaan maalin walba gali kaday waxaan u bixi jiray inaan xisaab ka soo dhigto bahashaas marka waxaan go'aan ku qaatay inaan geed ku xidho sanad gudaheed bahasha xisaabta waqtigii aan galiyay runtii waxay noqotay wax iga muuqday oo imtixaamaadkii iskuulka aan galiyay runtii markay xataa noqotay imtixaankii eedka kalaaskii xisaabta markay imtixaankii eedka aan galinay in ardadii ugu sareysay muxuu ugu sareeyay inaan ku jiray marka waqtiga aan dhigay maadada aan dhiganay maadada ay waxaan isweydiiyay sideed bahasha hadaba ku sii hayn kartaa oo isku ilaalin kartaa ha sideed u ilaalin kartaa xisaabta iyo quraanku labadoo waa shimbir baalka lahayd quraankana haddaad subc isku ilaalin weydo uu ka kala daataa xisaabtana haddaad joogteen iyo ku celcelin ku adkeyn weydo way ka baxsanaysaa تعبتي كاسو قلب يرى waxaan isweydiiyay wani bahashan tacabad soo gelisay ee dugsi sarana waadiga nimka bilaabay bahasha sideed gacanta ugu sii haysaayo aad u sii noqotaa championkeeda kadib waxa go'aan soo baxday horta bahashan bal dig inaan dhigo sii gudbiyo ayay noqotay halku marka waqtigaas fasal ba marka waxaan ka bilaabay wax dhigista private hadda la yiraahdo item oo imika aan malaynayo inuu jiro wali item baa la yiraahdaa African Institute Development Administration Management waxay soo magacayihiin siram ay soo magacayihiin marka halkan alxayaat diagnostic ayuu ka soo horjeedaa marka halkaas aan tagay nin maamulka ahaa oo la oran jiray Abdi Jama iyo maamul ku xigeen Maxamuud ayaan ku dhawaanayahay inuu caasanahay maadada xisaabtaana waan ku fiicanahay waxaan rabaa inaan macallin noqdo oo aan maadada gudbiyoon dhigo xiyoonin aad da'yar baa tahay bal beritolay ku soo noqo macallin kale fasalkiisii ayuu markaa igu training gareeyay oo macnihii igu tijaabiyay balan wax dhigi karo sax macallin kale fasalkiisii maalinta fasaxay dabeetana oo fahaaba ayaan igli soo geliyay dabeetana cabaar buu ninkaas ila joogay fasalka dhexdiisa casharkii aan dhigay iyo wixii sidaan u dhigay ayuu aad ugu riyaaqay isla bishii ku xigtay bay ballan qaaday inaan kalaaskii ugu horeeyay xisaabta inaan dhigi doono marka waayaha walaal macallinimo runtii xilliga ka soo bilowmay markaynu eegno runtii de waxay ahayd iyo ilaa imika waa waqti dheer runtiina waqti inta ka sii badan runtii inaan ku sii jiro hadda waan jeclaysanayaa why because of waxa weeyaan dadkan ka hantiyay iyo runtii populationka runtii maaska inta leege inaan ka helay ayaa runtii waxay mar walba igu sii dhiirigeliyaan inaan inteedii hore ka sii fiicnaado haddii aan ku soo dhawaado markaas su'aasha walaalo hal shay baan ku soo duuduubaya sababta ay ardadii aan wax u soo dhigay ay si amaanaan ama ay si jeclaystaan waa qofkii inuu waajibkii la saaray si fiican u guto
nature-kana waxaan naqaanaa sida caadiga ah qof kastoo bini aadami xilka iyo mas-uuliyadda la saaray haddii uu siday tahay u guto dabcan waad jeclaanaysaa aabbuhu hadduu roolkii qoyska siduu ahaa hadduu u qaato dabcan xaaskiisa iyo ubadkiisu way jeclaanayaan madaxweynuhu hadduu roolkiisi rasmiga ahaa uu qaato sidii ummadda la doonayay uu ugu shaqeeyo oo daacadna uu noqdo dabcan waan jeclaanaynaa qof kastoo mas-uula waa kullukum raac wa kullukum mas-uulun can raciyatihi macnaa maalinka qiyaamana waxay ka mid tahay runtii waxyaabaha ummadda la weydiin doono qof kasta mas-uuliyaddiisa ha yaraata ha badnaato marka haddii aan si guud u eego walaal waxyaabaha runtii ardaydaas ay ugu ammaanayaan anuu hadda dabartan ka salaamaya dhammaantood meel kastoo ay joogaan ciddaan wax soo baray runtii wax kale maaha ee mas-uuliyadda ah inaan wax u dhigo ayaan iska xil saaraa welibana si extreema ayaan isaga xil saaraa waxyaabaha runtii aan aadka muxuuha aan usii jecelahay inaan usii xuso waxaa ka mid a waqtiga wax dhigashada ama time runtii inaan ku fara adag oo ardaygu intaan wax u dhigayo inaan si buuxda u siiyo waqtigaa uu wax dhiganayo xilligaa uu wax dhiganayana inaan wax ugu dara mooyaane waxba inaanan kala hadhin sidoo kalena inaanan ka maqnaanin ardaygaas oo ballamaha aan ugu ilaaliyo waxyaabaha aniga saamaynta igula iminka dib u xasuusta waxaa ka mid ah maalinkii aan xaaskayga guursanayay ayaa waxaa dhacday maalin khamiisa bay ahayd inta badan waxaynu naqaanaa meherada khamiis baynu qabsanaa marka arbacadii marka waxaa jirtay anigu sida caadiga marka schooling systemka la eego hadda waxa kaloon dhigaayo inta badan aan wadaa barnaamijkii non formalka oo waxaan ahay macallimiintan bareefadada ardada kale ku soo kabta uga faa'iideeya marka arday baa markaa jirtay xisaabta aan uga soo bilaabay form 1 form 1 form 2 form 3 on form 4 markaa form 4 markaa aanu marinayo waliba form 4 gabagaba aanu marinayo xilligaana iyagu iskuulka form 3 ah haddaba fiirsaya xilligaa aan ka hadlayo iyagu iskuulka form 3 bay ahaayeen laakiin xisaabta markaynu ka hadlayno form 4 bay ahaayeen waxayna runtii ahaayeen runtii arday habloo badnaa waxa aan ka xasuustaa iminka waxaan filayaa sanadka saddexaad jaacadaha inay yihiin ama ka afraad dana khaldanayn ayaa waxaa dhacday khamiista oo keliya atay dhigan jireen xiisadda only one day on the week hal maalin toddobaadka ay wax dhigan jireen kadibna halkaa maalin wax weyn bay igu ahayd inaan iska xil saaro mas-uuliyadda dabeetana waxaan ilaabay inaan fasaxo ardada khamiista waayo khamiista barnaamij baa ii yaalla marka inaan ardada fasaxo waan ilaabay habeenkii khamiistu soo gelaysay ay caawo kale ay khamiis tahay subaxana meherku yahay ayaan barnaamijkii xasuustay inaan xisad leeyahay dabeetana waxaan go'aan ku qaatay waxbaba inaanan dhibsaninbe inaan xisadaana dhigo anoo labisan meherkayga inaan ka xaadiro ardaydaasi 7 subaxnimo ayay xiisada gelayaan meherkana waxaa iga horeeya ilaa 3 ilaa 4 meher ayaa iga horeeya masaajidkan sheekh dirar buu ahaa dabeetana 10 ayaa markaa aniga laybalamiyey inaan halka masaajidka aan xaadir ku ahaado waaba waqti fiican baan ardaydana 10kaaba soo fasaxaya ha si fiican baabay ay soo kay beegantay subaxnimadii horaan u kacay ma iska bedeshay labiskaygii baan isku soo taagay gaarigayga baan soo kaxaystay dabeetana bartii college-kii ayaan imid xiisadii baan galay ardaydii baa si fiican oo macalmaanta aad baad maasha Allah ha baan ku qof ogna ma jiro inanka institutionka hayee maamulka mooyaane ardayda xataa ma oga way xataa ma jirin iclaan yaro isi dheh la yiraahdo oo wii ka hor inkastoo waqti fog baanay ahayn laakiin haddana anigayna ahayn runtii waxyaabahan taageero in qofka in la sii iclaamiyo marka aad bay u ahayd waxaan la ogeyn kadibna xiisadii baan dhigay sidii aan u dhigi jiray iyo si kasii fiican baan u dhigay wax barnaamijka ku saabsan kalamaanan hadal iyaguna ma oga dabeetana sidaa markaan kadinka uga daadegay ayuu inankii maamulaha u galo markaasuu ku yiri macalinkiini waa caruus marka macnihii waxaan ka hadlayaa dee anigoo runtii
arrinta noocaas gelaya ayaa haddana waxaan iska xil saarayay in ardaydaasi aanay xiisad la'aanin waxaa laga yaabaa dadka qaar markay arrimaha gelayaan xataa 2 cisho ka hor inay sii fasax qaataan marka runtii hooyadii khayr laha siiyo ayaa runtii subaxii aad ila yaabtay maasaygu warsad wax leedahay maasaan ku hooyo tan waa waajib tan kale waa gudanayna labadaba tan ma soo horeysiinayna marka runtii waxyaabaha ardaydu muxuu ahaa ay ugu xasuustaan waxa kamid ah inaan waajibkeyga sida ay tahay loo guto qof kastoo bini aadan waajibkii la saaray si fiican u gutana dabcan waa la jeclaanaya kulli saad sheegtay macallin dee qof walba hadduu xilkiisa soo guto dee waa la amaanaya oo shaqadiisa waa lagu amaanaya qof kasta bulshada member buu ka yahay meel buu ku jira kulli marka booska aad ugu jirto ma ka soo baxday wala kala si fiican haddaynu ku soo soconay barnaamijkeena dhanka waxbarashadeena hadda waqti xaadirkan ereygan waxbarasho maxaad ku qeexi kartaa way kula tahay talo macallin adoo khibradaada adeegsanaya waa la mashaakirow hortu markaynu ka hadlayno kelmaddan waxbarasho iyo waxbarid waa kelmad sideeda u ballaaran macnayo dhowr ah ama dhinacyo badan baynu ka eegi karnaa laakiin macnaha ugu weyn ee waxbarashadu ay xambaarsantahay waxa weeyaan inuu yimaado desirable change isbedel dhab ah oo qofku ku yimaada habdhaqankiisa nololeed iyo akhlaaqeed marka waxbarashadu markaynu si guud u qeexayno walaal waa qofka waa inay bedesho maskaxdiisa habdhaqankiisa maskaxdiisa yani qaabku qofku u dhaqmayo noloshiisa inay waxbarashadu wax ka bedesho wey marka inaga waxyaabaha la yaabasa waxaa ka mid ah arday baa 20 sano wax soo baranaya 20 sano ayuu wax soo baranaya waa 12 sano secondary ayuu ka baxay 4 sano jaamacada hadduu doono uu shaqeeyaa waxyaabo kale inuu sii bartaa haddana waxaa laga yaabaa how he is dressed qaabku u labisan yahay markuu halkaa wadada marayo inay yaro isaguna baabuurta masaxa inay isku design yihiin oo isku si u xiran yihiin isku si suwaalka ay dhexdeen ay ugu xiran yihiin macnaheedu de qofku markuu wax barto waa inuu isbedelka marka isbedelkaana dhinacyo badan ayaa laga yeeli karaa waxyaabaha cajiibka la mid ah aan ku xasuusto waxa kamid ah inay raabto ahay baa maalin oo 5 jira ayaa waxa la geeyay meelahan kijiyada ayaa la geeyay dabeetana anoo qol wax ku qorqoranayo qol wax ku diyaarinaya albaabku uu xiran yahay ayaa ku yaroon dhalay iyada ayaa daarada markaa soo erinaya marka ku yaroon ayaa ka yar albaabka furay markaasay gacanta qabato waxay ku tiri maya albaabka garaac dadna albaabkii bay gacanta 2 jeer ku dhufatay qaw waayaa waxa ku waayo sitiraabtii waa aniga ma soo socdaa waa ilmo yar oo imku af Soomaaliga baranaysa oo ka jiid waan la yaabay dabeetana waxaan ku ri waan soo fariisay waxaan ku raabtay yaa ku ri albaabka la soo garaaca sitiraabtii macallimada ay bartay marka macna waxaan ka hadlaynaa waxbarashadu marka laga eego aqoontan la kala qaadanay rasmiga ah waxa kale ugu weynaysa wax weeyaan in qofka waxbarashadu akhlaaqdiisa iyo habdhaqankiisa inay wax ka bedesho imika inaga waxaad moodaa keena ugu aqoonta sareeya waqtiyada qaarkood inuu waab Soomaali liito meelaha bulshada ka hadlay umad kala kaxayn waa yaaba inuu waab Soomaali liito marka runtii waxbarashada markay waa la si guud aynu u qeexno waxbarashadu waa isbedel nololeed oo qofka dhinac kasta noloshiisa ka taabanaysa haddii habdhaqankiisa noqoto haddii garaadkiisa noqoto haddii hab fikirkiisa noqoto iyo haddii marka ay noqoto horumarkiisa nololeed ee gaarka inta way taabanaysaa way akayna hadaba eegna dhanka xisaabta ardayda arday badan baa jirto xisaabta aan jeclayn iyo qaar jecelba adigoo macallinka ahaana maadadii maanta gacanta ku haya ardayga maxaa xisaabta jeclaysiin kara maxaana aan jeclaysiin karin oo keenin maadada xisaabta uu necbaado ardaygu ama wax kale ka aamino horta walaal mashaakil aad baad maasan tahay su'aasha laba dhinac ayaynu ka eegi doonaa mar si guud baynu eegaynaa marna specifically maadadaynu ku koobnaanayna runtii markaynu si guud u eegno ardayga maxaa jeclaysiin karaa waxaanu dhiganayo maadada noocay doontaa noqoto mar horantaa aan soo sheegay waxaa jeclaysiin karaa macalinka xiisada dhigaya ayaa mas-uuliyadda leh ardayga inuu maadada jeclaysiiyo ama uu necbaysiiyo waa mid ka soo fulaysa macalinka waxyaabaha ardayga ka mid ah inuu macalinkiisa jeclaado iyo inuu waxaan u dhigaya jeclaado waxaa ka mid ah inuu macalinku marka hore ahaado well organized macalin diyaarsan
oo casharku berberito la dhigayo waa inuu garan karayaa casharku dhigaya waxa uu yahay xiisadiisu intay ku qiimeysan tahay intuu wax sharaxayo intuu ardayda wax weydiinayo su'aalaha ay tahay inuu iyaga weydiiyo su'aalaha iyaga uu ka filan karo inay isaga weydiiyaan xataa waa inuu sii garan karo ka daba fiirso macnihii ardaygu macallinku waa inuu sidaa usii diyaargarowsan yahay xiisadiisa inuu usii diyaargarowsan yahay waxaa laga yaabaa 2 casharo isku xigo shalay iyo maanta inaan isku sii u dhigin karin waan ahaanigu inaan xiisadna su'aalo ku dhammaystiro iyadoo casharku cashar cusub yahay dan waxaa laga yaabaa inay su'aalo ku bilaabo su'aalna aan ku dhammaystiro kadibna conclusionka intaynan soo ururinaa ay markaa macnihii noqoto xiisadna waxaa laga yaabaa in aanigu bilaabo dabeetana wax alla wixii afkayga ka soo baxay maskaxdaan ku hayo ku saabsan casharka inaan dhigo marka macallinku markaynu si guud wal aynu eegno inuu xiisada ardayga jeclaysiiyo runtii isaga ayaa roolka ugu weyn ka yeelan karaa haddaynu soo dadegno waa xisaabta horta axmedo baasha xisaabta la yidhaahdaa dadkeenu waxay ka qabaan phobia sas bay ka qabaan aan waxaan ka mid ahay baan odhan karaa dadkii saska ka soo badbaaday oo aniga hadda ka sheekeynay inaan ka mid ahaa dhalinyartii markay dugsiga hoose ahaa in xisaabta ku adkeyd laakiin go'aan baan ku qaatay bahasha inaan meel ku xidho لكن مع الحالة قف كستك وعدك وبرتاهم ريق ده فكرة هم كلها بركا قف كستابة مادة إن لا يلاحظوا وعدك تهاي أو واحدة لبرن كرم معها أو حيابها أردد نسي نيجيبية كهر بارد ويسوق حساب عن عرق بركا وحيابها أردن كرا أردجا مادة وتشعلي سين كرا وحكم إذا إنه معلم كم صحف فكرة ده إنه مادة أردك تهاي إني حتى قرب كورونا يحد مادة حساب طبعا بالغواشة. ومعلمين كان مسمى تيمو عفوان وكلا. تبتنا وحلاقيها بقى إني دهذان مادة حساب طبعا بالغواشة هدد أدوسي برات تكسي فكرته ولا بحرق بس كات هبنا هدو تولى لقامين مايو وإنه أهلا بالغوي حساب سنة. مركها وحيابها سواء الواد دعايات كرنتي فعفي. كمدا وحنا سأنو آمن سنة تعكس كده. قفك حساب تيقانا وكم مسكح فرفورين تذكره. بكدقين وانو كهر فكر دوية ومركا اللي ايجي وحيابا critical thinking كلا ينادو تقفك حسابته يقانا مير دو وحكا ايجا ودادك الآن وحباني كي كرين مركا والو حيابا رنتي استلاي هاي مادة أردو ويكو تشعلان كران وحكم إذا معلنك subject ما تركيز أما مادة دو لغيو إنو يساقو نصيف في عانو برتو هاب قدبين تنا إلا فضيديو وقفك مركا 10 لو غدبينيو ان سي فود لو غدبيو وان لو غدبي سيدي wax weyn dad imika soo gashay class oo tirada maanta 10 kan dhigana 10 kan waa 10 subhanaka ya cadin waa 10 adag waxyaabaha imika kale ardayga marka class soo gasho kale hadad ku tiraahdo ardayga 10 kan imika dhigano ciwaanka bartana ku qoray waa 10 imtixaamada ugu adag ee la isweydiiyay imtixaamada waa 10 runtii aad iyo aad u dhib badan hadaad inta u sii sheegto وعقال شيلاد وعلى هرتيجة بيدوي تدار دقيقة وحبا أنجارسين نيد وحكو كسي هيابا إنه 10 دقيقة مركز سكستو استرادو فهنسي إرجع يجوه ريه بعرض جن دقيقة وقلبي سقاط مركز وحيابها رنتي يعني سلاي هاي أرددو ويكوش علان كرامة ده وحكم بدأ معلمين تسكحل سعران وحيابها الدعايات كيف عفي إني مركز محوها ماشي كسعران وأهم ددو يعادك تحييو مادو lagu waasho weeyaan dadka bartaa way ku waashaan waxaan ku raahdaa anigu xil aad leedihiin oo aad gudan weydeen natiijadii ka dhalatay si aan leedin weydiin sababta ayaad markaa u tiraahdaa waa lagu waashaa marka ardayo kale marka exercise waxa aan u diro shaqada soo qaban waayay inaad kaalmo waxa tanooca xisaabta lagu waashaa kasoo macna wallahi waa sida marka waxaan u jeedaa waxay tahay almuhiima macallinku كو سجى مادة إنه أرضي كشعريسي رولك وين كله حسابته رنتي ما كانوا جارو إيجيننا ويككم كريت جريسنت أما ويكسامين بدنتي مادوين كله وحين رنتي كم يتهاي مادوين كأرضين لو قنعيا بحتى يفوض هاي إلا فاسين كرا عاد بيفوض هاي because of إمكان كورا هذا الله بشر كدار توصل كريارتي تضبين يتهاي ين سجال تهاي مكان كورا واسجال هذا جم بحتى يقولوا دودي أنا سجال مرجع حسابته كله وحيابها وجو فضود أرضه هدو فهموا لقد عدين كلا قرعين كلا يمكن مديها لكن مركز لو قضوه كلا حتى كلمة ده قار وابا أرضه معلم بي أي مؤامرات اللي جاي مؤامرات يروحوس
شرقات dabeetana markaa macallinku luqada ingiriisi u dhigayay dabeetana markaas ay yiraahdeen macallin kelmadda rebictory micnaheedu waa maxay macallinkii baa markaa class ku hortaagay oo su'aashiina waa su'aal afka ka weydiiyay rebictory dabeetana macallinkii markaa wuxuu ku jawaabay su'aashii markuu garan waayay waxa la yiraahdaa ma garanayo ma waa qayb kamid ah cilmiga la tirada waxa ma garanayo qayb kamid ah cilmiga weey marka waxaan ku wuxuu yiri rebictory waa adjective la adkeeyay waa sifo marka waxba ku sheegay yarka marka qosqos loo wees eegeen markii dambe xiisada uu dhameeyay ku kaalayba ereyada weydiiseen wadii ku qosqoslay muxuu ahaa markaas ay ku yiraahdeen ma ereyga Soomaali baa uu haayo waxay ahayd riba victory marka intii ma macallin suuqa xidhno victory uma English toora marka waxaan uga jeedaa waxay tahay macnaha marar badan xataa waxa weeyaan ardadu way waxyaabaha xisaabta ugu fududeyaan ardayga lagu qancin karaba marka runtii in wax dhigistana la fudaydiyo oo macallinku habka casharka uu gudbinayo xisaabta inuu fudaydiyo oo uu ka dhigo wax fudud ayaa markaa muhiim